guddiga agaasimo midoobiyada asaa ka noqon doono maamulka iskuulka asigaa noqon doono marka hadda waxaa horteyda fadhiyo ardaydii iskuulka al-anwaar maamulayaasha bixi u naqan lahaayeen macallimiinta u naqan lahaayeen dhammaan ay fadhiyaan alxamdulilah al-anwaar alxamdulilah ma ahan guri waa iskuul weyn iskuul dowladeed ah weligas jiri doon insha allah bismillahi kariim oo maanta aan dhammaanayno sidaa daraadeed waxaan ku qasbanahay inaan iska 70 jir ah inaad soo booqan doonto al-anwaar arki doonto insha allah bismillahi kariim fasalkii aad ku dhugan jirtay oo maanta lagu dhiganayo waxaan u yimaada alxamdulilah waalidiin fara badan oo 70 maadaama muddo ka bacdi ama sanado ka bacdi aad ku soo laaban doontid iskuul ah aad soo booqan doontid ama inta ka shaqayso muddo badan aad ku noolaa doontid waxaa laga yaabaa ardayda qaar inay isweydiiyaan waxaan oo sifay leeyahay maxaa ka runaya maxaa ka been ah waxaa ka runaya waxaa ka been ah macallimiinta taagan 95% waa ardaydii al-anwaar waay macallimiinta maanta taagan dhammaantaa kiyaniya 95% ama ka badan macna inta ugu badan shalay sida adiga u fadhiyay maanta waa kuwana alxamdulilah hortaadii taagan yihiin biri adigana cidkaa agtamaan insha allah bismillahi kariim marka aan dagaal haddii la yidhaahdo iskuulkeena aan ilaashano aan inuu qabto shaqooyin badan ilaahu fududay shaqooyinkaas amiin inta musharaxiinta soo bandhigtay waa arkayna marina waxaan ka codsanayaa golaha wakiilada matalaysa ardaydan xoogga leh inay doortaan arday ka bixi kara shaqada waxaan jeclaan lahaa ku codsan lahaa warqadda magacay ku soo qori doonaan inay aad uga fiirsadaan qofkay ku soo qorayaan 4 qof ayaa musharaxiin ah qofka doontaan ana hebel magacaawada ma leeyahay minadaay laakiin qofkaas leeyahay shaqada ka soo bixi karo u magacaaba marka waxaan jeclaan lahaa waxaad matalaysiin oo wakiil ka tihiin ardaydan badan waxaan u yeeri doonaa ardayga ugu horeeyo oo aan rabo inuu codeeyo ardaydana waxaan ka sii codsan lahaa qofka in si deganaan aan la soconno qofka ku soo baxana aan u sacbinno aan u hambalyano shaqadiisa sidaa darteed ardayga ugu horeeya rabna inuu taagan waxaa loo yaqaanaa maxamed axmed xuseen maxamed axmed xuseen waa loo jeedaa marayna kurid محمد أحمد حسين وعدي عاشا عمر عبدي وعدي نصر إبراهيم آدم وعدي مصطفى علي عثمان وعدي أيوب محي الدين محمد وعدي محمد سرماركة محمد وعدي الماضي أعيان الشتات حرب مآسي مؤلمة جميلة إسماعيل عبد الرحمن وعدي صفية محي الدين هلولة وعضيفي مشرح سمية صالح حسن محمد معو أحمد وعدي مشرحة سمية صالح حسن وعضيفي مشرح محمد عبدي محمد وعدي هي أويس مؤمن أسامة حسين أحمد علي محمد أحمد محمد شرماركة محمد عاشق فارح أحمد ياسمين عبد حسين
أمرا عثمان عبد الحميد ويعرس. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبك لا نرضي الناس. كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في ورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون 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 حيث كان الحق والعدل نكون نقضي الموت ونأبى أنه. markay tiriyeen codadkii waxay heleen natiijada soo socota. Sumaya Saalax Xasan waxay heshay 5 cod. Raxma Aadan Xasan waxay heshay 1 cod. Maxamed Cabdi Maxamed wuxuu helay 5 cod. halkaas waxaa ku guuleystay maxamed cabdi maxamed oo 5 cod ku guuleystay. ninkaas ayaa wuxuu noqonayaa guddoomiyaha midowga. أولاً السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مامولي معلمين يا أرديبة انتبهوا والسلامي. waxaan ku faraxsanahay maadaama aan noqday gudoomiyaha Al-Anwaar ee dhanka galab. gudoomiye ma ahan sidii qaabgalaaska oo kale ma ahan. waxaa sugaya shaqo aad u badan waayo far kaliya fool ma dhaqdaa la hadda kaliya waa shaqeyn haddaan ma shaqeyn karo. waxaa loo baahan yahay dad ila shaqeeya ama dad wax ila qabtaa. intii codeysa iyo inta iyo codeenba way maasan yihiin. waxaan ugu mahad celinayaa saaxiibkayga qaaliga oo juhdi igu siiyey inaan noqdo guddoonimo. waa Akram bin Khaliif Cabdullaahi Khaliif Sawta Qaaliin. waxaan ku faraxsanahay maadaama aan noqday guddoomiyaha cusub ee dhanka galab. waxaan leeyahay shaqo fiican. wax walba aad iga codsataan ama wax walba aad jeceshahaan inaan ii qabto. وعلى الوحير وان هنقدان وانا ما سنتين